meeshan gobolka Togdheer saas uu eegyahay waxaan leeyahay madaxweynaha Muuse Bixiye maayirka Burcaba meesha naga hagaajiyo waxay ahaydeen meel dheel subax dheel halkan siimanaa soo marnaa marka waxaan leeyahay caafimaadka hal laga hagaajiyo meeshan laga hagaajiyo wali waxa soo socda wallahi waxa soo socda arrimo kale ka xun baa soo socda oo aanu soo deyn doonaa oo fashilka magaalada quseeya oo maayirka iyo maayir ku waxa ay qaban kari waayeen quseeya oo ummadana been maalin walba loo sheegaya halkani waa goobo ay maalin walba si joogta u maraan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Burco oo ay kamid yihiin ardayda dhigata dugsiyada waxbarashada ee ka agdhow xaafadaha Maxadka iyo Salebaan Kulul ee magaalada Burco waxay cabasho dheer ka muujiyeen in dhibaato weyn ku hayo qashinka halkan la soo dhigo iyagoo sheegay inay ka dhalan karaan xanuuno waxyeeleeya caafimaadkooda waxayna ugu baaqeen mas'uuliyiinta dawladda hoose degmada Burco oo ugu horeeyo maayirka degmada Burco in wax laga qabto qashinka buuxdhaafiye xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco ee ay ardayduna u soo maraan waxbarashada ardaydani oo si dareen la u hadlayaan waxay yiraahdeen sida tan aniga magacayga waa Hoodii Soobsiye waxaan dhigtaa iskoolka Jamaal Cabdinaasir xaafadeena waa Balaasa halkan aan wadaanaka oo sidaas u eeg qashinka marka waxaan ka codsanaynaa dawladda hoose magaalada Burco inay wax ka qabtaan qashinka dixdan yaala anaga xaqana noo birisha xaqas birishu yaala kisa waa bacad baabuur waa marsa xaqana anaga noo birisha ee qashinka saa u yaala ariga xataa gaajo waaba ku dhargeenba laakiinse waxa ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan ardayda wadankan nahay kabacdi dixdan baan soo badnaa qashinkaas kama mari karayno iyo qarmuunka caafimaadada aan ka qaadnay marka anagu bulshada waxaan ka codsanaa mudaharaad baan nahay in la ka hagaajiyo qashinkana la ka gurade wadankii baan ubaxa wadankiisii baan nahay in la eego oo nala yimaado in doonina anagu wadadan baan marnaa iskuulkaasaan ku soconaa maan ifriteen qashin bay soo dhiga xitaa ariya u dheer marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliland wax laga qabto meeshan maayarka waxaan leenahay wax ka qabto ilaa xataa inta taagan qarmuunka ma adkeysan karo waxaan dhigtaa iskoolka Jamaal Cabdinaasir xaafadahaygu waa Cuqubo meeshan gobolka Togdheer saas uu eegyahay waxaan leeyahay madaxweynaha Muuse Bixiye maayirka Burcaba meesha naga hagaajiyo waxay ahaydeen meel dheel subax dheel halkan siimanaa soo marnaa marka waxaan leeyahay caafimaadka hal laga hagaajiyo meeshan laga hagaajiyo halkani waxa weeyaan wadadii la marayay isku xidhaysay talowga Burco iyo suuqi midda kale halkan waxa ah iskuuladii ardaydu badankoodu waxa ka yimaadaan xaafadaha dhinacan sida aawadeed halkan baa qashinka la dhigaa xaafadaha gaadhi ma soo maro wax kale meel ay ku ururiyaan ay ka qaadaan ma jirto qashinkii wuxuu sidoo kale u galay xaafadihii sida aawadeed dadkii ganacsanayay halkan bay soo maraan ardaydii halkan bay soo maraan wixiiba waxa ka haysan nadaafad xumo Ali Ismaan Ibrahim oo ku nool xaafadda Salebaan Kulul waxa weeyaan wadadan waan marnaa qashinka la dhigaa nooc walba waa la keenaa qashinkana habeenkii waa la dhigaa inta badan waad aragtaan meeshaas waa ku daafado waa caqabad nadaafad xumo ugu haysa maayirka iyo xildhibaanada gobolka Togdheer waxaan ku baabinnaa in qashinka laga qabto qashinka wax laga qabto dhinaca kale xildhibaan Aadan Xuseen Dirir oo saluugsan maamulka dawladda hoose ee Burco ayaa ku dhaliilay inay tahay qorshe xumo iyo gaadilaan haysata dawladda hoose in halkan uu yaalo qashinku halkan saacadan aan taaganahay dhabarkayga waxa qashin ka muuqda waxa maxaan ku yiraahdaayay nadaafad darro tuuran waxa maxaan ku yiraahdaayay buuxa waa la wada arkaa xaafadani waa xaafadda Salebaan Kulul waxaanu aragnay meesha la yiraahdo Toga oo ilaa 5-6 meelood waxaanu aragnay meesha la yiraahdo Sayladda waxaanu aragnay meesha la yiraahdo Qasabka waxaanu aragnay meesha had iyo jeer laga adeegtay magaalada bartikeeda ee Sariibada laakiin waxa weeyaan saaxiibadayo golaha deegaanka degmada Burco cidda hogaaminaysa gudida fulintu waxay kala garan waayeen qaabka hawsha loo kala horeysiinayo waxay kala garan waayeen hawsha mudan sida loo kala kaxaynayo waxay ku fashilmeen shaqadii degmada loo hayay oo ah gaadiidkii magaalada qashinka ka guri lahaa oo $1.25 milyan baanu sanad hore asixinay in magaaladan qalab iyo gaadiid iyo loo soo siiyo cagafyo oo waxba ka suuroobi waayeen 13 gaari iyo Maxamed Muuraad kaga tagay baan ugu nibi 13 gaari 6 kamid ah fadhiya oo dib u fadhiistay 7 shaqeeya 7 iyo Burcana waa kala weeyeen meel walba qashinka ba istuuray haddii laba ku rooyahay gaadiidkii aan doonaynay inaan soo iibinayna waa la waayay
gabya baanu doonaynay 2022 inaan ku xidhno waxaan ku idhaahdayay toga oo qashinka ka xidhno oo lacag $8,000 goluhu uu ansixiyay tiina waa la waayay waxaan u baahanahay horena waa u sheegay goladeega baanu nahay oo sifa sharciyan loo soo doortay cod shacab baan ku joognaa in aanu isla xisaabtanka awoodayada aanu la soo baxno maayarka iyo maayarku xigeenka marka aanu garan weyno in anagu golahayaga geeyno waxaan madaxweynaha qaranka Soomaaliland wasiirka arrimaha gudaha cid kastoo ay qoseysaba waxaan ka codsanaynaa in warqadii kala fadhig mooshinada lagu furayay degdeg loo soo daayo wali waxa soo socda والله waxa soo socda arrimo kale ka xun baa soo socda oo aanu soo deyn doonaa oo fashilka magaalada quseeya oo maayarka iyo maayarku xigeenku waxa ay qaban kari waayeen quseeya oo ummadana been maalin walba loo sheegaya anigu dareen shacab baan sidaa ummad baa soo dooratay inaan yar iyo maxaan ku dhahdaayay 2 inanoo yar iyo 3 inanoo yar anigu inaan dhiso halkan oo man iman nin halkan laaluush iyo qurun u yibina ma ihi laakiin kuwa yarar halka taagan ee caruurta ay salaba kullu jooga seelada jooga tuurwa jooga maxaan ku dhahdaayay October iyo qasabka iyo maxaan ku dhahdaayay City Plaza jooga ayaan xildhibaan u ahay kuwaasan anigu aan doonaya in magaaladan wax lagu qabto burco berberana way ka hadhay hargeysana way ka hadhay gabilena way ka hadhay booramana way ka hadhay ayna meesha lina ceergaabo iyo laascaanoodna way ka hadhay inay sii degto ma doonayo waxaana ku haya maamul xumada weeyaan xildhibaan waxa jirta adigu waxaad xildhibaanada ugu waxqabad ka badnaa ee waxqabadeedka soo furiyay tuulooyinka hoose gobolka Togdheer halkana waad aragtaay oo magaalada Burco bartankeedii waa maxay sababta miiga ku geeyay iyadoo ku taalo shaqadii ahayd inaad magaalada ka nadiifiso qashinkan tuuran gaar ahaan xaafadaha ugu weyn magaalada Burco horta saacitay 13 kayga xildhibaan nin iga shaqo badan ma jiro hadda now haddii sanadii 9 bilood baan joognay sanadii 9 bilood ba waxaan qabtay Ilaahay baa og subhanahu wa ta'ala inta wadooyina baniyay iyo inta hawl aan galay su'aashaad hadaan ku soo noqdo oranaysa maxaa miyi ku geeyay oo miyi halkii laga soo doortay marka waxa ii geeyay Cabdirashiidow de inaan yagana markaad 8 iyo 9 iyo 10 iyo 5 iyo 10 jeer magaalada galo baynaan hal mar bar halkii deegaanadii laga soo doortay baynaan siira taago de waajib ay noqotay laakiin maxay ku kala gaadhaa magaalada gudaheed baa caynkaas oo inamadii aan islahayn waxa bedelaan oo waxa hagaajiyaan oo hadii ku rooyahay aan wax tusinina inama yar kale garamaan soo xidhiyaan soo oranayaan maamul daadajin baan sameyn oo cashuurta hala bixiyo cashuurta de ummadda way qashka laga guraa waa cashuurta ummadda way loogu shaqeeyaa Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco